السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعبد الله وحنا عايش على يقان كتير راديق LLC with Cars Morrison. رمضان مبارك ميل بعد جبتان. المقال كمان تحكي كجاه اللي دونا دت كمواطنين تمريكان كا حاسس كودا أما إسبوسيو دا انترفيو كسوغا يعني سفارة أمريكا كاي نيروبي كواس ولا كل ما يدا هتان عن شرع عن هين سيدا هوري أنا وعرقني سفارة أمريكا كاي نيروبي مرة بوحكي جرا دي بودا آد وين كاسو سامينا يا دت كانترفيو ريديجا laga soo bilaabo June 2022 ilaa hadda nasiib darro waxaan aragnaa inuu mataqaanaa dib u dhacaas kor u sii socdo marba uu sii grow gareynayo sidaa daraadeed Radiq LLC waxay go'aansatay inay sameyso dacwad wadareed ama group lawsuit kaasoo mataqaanaa aan ku challenge gareynayno daahitaanka aan sharciga aan ahayn sidoo kale higsigeena waxa weeyaan inaan ku dedejino balamaha interviewga macaamiisheena safarada Mareykanka ee Nairobi sidoo kale yaa u qalma inuu ka qayb noqdo ama inuu ka qayb qaato dacwadan waxaa ka qayb qaadan kara qofka categorigiisa uu yahay IR1 ama CR1 visa category yani hadduu categoriga uu yahay IR1 waad ka qayb qaadan kartaa CR1 waad ka qayb qaadan kartaa sidoo kale dacwadan qofka ka qayb qaadanaya ama u furanta waxaa kamid ah lamaanayaasha safaarada Mareykanka ee Nairobi ku qoran kaliya safaaradaha kale ma qusayso sidoo kale waxaa ka qayb qaadan kara dadka documentkooda ama documentary qualified noqday ka hor April 2023 dadka ka hor noqdeen documentary qualified ama DQ noqdeen baa ka qayb qaadan kara sidoo kale dacwadan ka qayb qaadashada ama isdiiwaangelinteeda ilaa ay waxay socon doontaa laga bilaabo maanta oo ah 1 bisha April ilaa 15 bisha April bay ku ekaan doontaa isdiiwaangelinteeda sidoo kale dacwadda waxaan gudbin doonaa 22 bishan aan ku jirno April 2024 insha Allah duu leeyahay haddaad qabtid wax su'aal dheeraad ah ku saabsan barnaamijka qodobadan ka soo hadlay waxaad nala soo xiriiri kartaa si direct ah waad ku maasantahay daawashada muuqaalkan.